Assalaamu calaykum. Muuqaalkan kooban waxaan kugu soo gudbin doonaa 3 qodob oo ka hortaagan inaad horumar samayso. Inta aynaan muuqaalka u gelin ka hor, fadlan haddii aad nagu cusub tahay, subscribe saar channelkeena. Aan bilowno. Boqolkiiba boqol adiga oo aan qaadin mas'uuliyadda naftaada. Maxaa dhacaya haddii aanad si buuxda u qaadin mas'uuliyadda naftaada? Horumar kasta oo aad nolosha ka gaadhid wuxuu yimaadaa kadib markii aad si buuxda u qaadid mas'uuliyadda naftaada. Haddii aanad qaadin mas'uuliyadda naftaada, waxa meesha ka baxaya fulinta dhammaan hawlahaaga oo dhan. Haddaba haddii aad rabto horumar, qaad mas'uuliyadda naftaada. Sababta labaad ee aad u horumari laadahay waa adiga oo sameeya cudurdaar. Cudurdaarku waa mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee dadka intooda badani u horumari laayihiin. Badanaa waxa aynu cudurdaar samaynaa marka aynu bixin weyno dadaalkii loo baahnaa in aynu hawl ku qabanno. Inaad cudurdaarka ka fogaataa waxa ay kuu sahlaysaa inaad hawl kasta aad ku qabato waqtiga saxda ah. Haddaba ka fogow cudurdaarka. Sababta saddexaad waa adiga oo aan sabir iyo dulqaad u lahayn waxa aad ka rabto nolosha. Inaad u sabirto waxa aad ka rabto nolosha waa tallaabada ugu muhiimsan ee aad ku xaqiijin karto hadafkaaga. Haddaba maxaa kugu dhici kara haddii aad joogtayn iyo samir la iman weydo? Dabcan ma gaadhaysid wixii aad rabtay. Si aad u gaadhid yoolkaaga nolosha, yeelo sabir. Xataa haddii aanad ugu horreyntii sabir lahayn, adigu isbar. Ugu dambayn waxa aad noqon doontaa qof dulqaad u leh wax walba oo uu qabanayo. Sabirku kuma yimaado maalmo iyo bilo, wuxuu u baahan yahay inaad ku celceliso.